isagu samayn waayey wastaxmaqa dabaalnimana uu sameeyey ayucdaru ma loo cudur daara muxuu dalaaqiisu u dhici waayey qaala shaykhu raximah اllahu tacaala baabu man jawasa dalaaqa halaaث haadaa midkani baabu man shaksi ayuu baab yahay shaksigaasoo jawasa baneeyey addalaaqa dalaaqa baneeyey dalaaqaasoo ahalaaثa ee saddexda ah baneeyey ayuu u baab yahay masaladan uu doonayo sheekhu meesha uga hadlo waxaa weeye culummadii bannaysay dalaaqu halaaثaha dufca waaxida aw mufaraqa dalaaqu halaaثaha u bannaysay inuu dhacayo hal mar hadduu qofku ku dhawaaqo uu yidhaah haweenaydiisa dallaqtuki halaaثan saddexan kugu furay hadduu yidhaaho in dalaaqaasi uu bannaan yahay uuna dhacayo ama mufaraqo weeyo waa tafriiqiyey dalaaqii midba maruu riday inuu dalaaqaasi uu dhacayo saddexdii loo qabanayo oo hal dalqa aan laga xisaabaynin masaladaasuu sheekhu tarjamaystay uu ka hadli doonaa sheekhu raximah اllahu tacaala masaladaasna waxaa ku ijmaacay ala'ima alarbaca afarta madhab waxay isku waafaqeen dalaaqu halaaثa haddii qofku uu rido saddex dalaaqo ama hal mar ha u rido dafca waaxida ha u rido ama iyadoo mufaraqaa ha ridee in saddexdiiba ay dhacayaan ninkaasina haweenaydaa saddex dalaaqa uu ku furay uusan dib ugu laaban karin ilaa nin kale ay ka soo guursato oo ninkaasi ay ka soo ciddo tirsato bacda jimaacihi markuu jimaaco ka bacdi ay ka soo ciddo tirsanayso weliba ala'imatu alarbaca keliya ma aha masalada waxa ku ijmaacay waa ilaa cahdu saxaaba iyo taabiciin oo dhan ayaa ku ijmaacay ijmaaca dhacay ijmaacaas waxaa weeye ilaa 10 kitaab ayaa laga soo guuriyey ijmaac inuu jiro masalada sidaas lagu ijmaacay 10 kitaabna waa calaa wajhi tamhiil waa mihaalina laa calaa wajhi alxasri ma ah inta kutubta sheegtay masaladan ijmaacu inuu ku dhacay lama soo koobi karo laakiin 10 kitaab ayaan ka soo qaadanaynaa oo sheega muslimiintu inay sidaa isku waafaqeen oo ku ijmaaceen oo khilaafo uusan ka taagnayn ilaa wax iska shaada mooye ijmaacaas ka hor yimid waxaa sheegay sheekhan la yidhaaho abu jacfar alxaafid abu jacfar addaxaawi kitaabkiisa la yidhaaho sharxu macaani alaahaar ayuu wuxuu ku yidhi waa ijmaac saddexda dalaaqo inay dhacayaan ninkiina uusan haweentiisa dib ugu laaban karin kitaabka labaad ee lagu sheegay ijmaaca waa sharxu lmuwadda imaamu maalik kitaabkii uu qoray oo muwadda la yidhaaho sharxiisa ayaa lagu sheegay sharaxaas waxaa iskale albaaji alxaafid albaaji taqiyudiin albaaji isaguna kitaabkaa wuxuu ku sheegay sharxu lmuwadda ijmaac masalada in ijmaac uu ku dhacay waxaa kaloo masalada ijmaaceeda sheegay ibnu rajab alxambali sheekhan la yidhaha alxaafid ibnu xajar alxambali fii kitaabihi jaamic اlculuum wاlxikam kitaabkiisan ijmaac wuxuu ku sheegay jaamic اlculuum wاlxikam la yidhaha waxaa kaloo masaladan ijmaac inay tahay sheegay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani fii kitaabina haada fatxi اlbaari waan gaari doonaa isagana ijmaac inuu sheegay masalada dhexdeeda ma ku gaari doonaa xaafidka naftiisu wuxuu sheegay masaladan inay culimmada dhan iyo saxaabadii ay ku ijmaaceen waxaa kaloo sheegay alxaafid alcayni kitaabkiisa cumdat اlqaari ayuu isaguna ku sheegay masaladan in ijmaac uu ku dhacay waxaa kaloo sheegay faqiih almaawardi sheekhan la yidhaaho fii kitaabihi alxaawi اlkabiir kitaabka la yidhaho alxaawi اlkabiir ayuu ku sheegay masaladan in ijmaac uu ku dhacay waxaa kaloo ijmaaca sheegay sheekhan la yidhaha alxaafid ibn اlcarabi fii kitaabihi annaasikh wاlmansuukh kitaab uu uga hadlay naasikh iyo mansuukh ayuu isaguna masalada ku sheegay ibn اlcarabi in masalada culimmada o dhan iyo saxaabadii oo dhan ay ku ijmaaceen waxaa kaloo sheegay ijmaaca soo guuriyey alxaafid ibnu cabdilbar fii kitaabihi alistidkaar sharxa muwaddaca muwadda imaam maalik kitaab uu ku sharxay oo isagana la yidhaaho alistidkaar ayuu ku sheegay ibnu cabdilbar waxaa kaloo masaladan ijmaaceeda sheegay alxaafid ibnu اlmundir fii kitaabihi alijmaac kitaabka dhanaba magaciisa ijmaac uu bixiyey ijmaac ayaa kitaabkiisa ijmaaca ayuu ku sheegay masaladan culimmado dhan iyo saxaabadii taabiciintii inay isku waafaqeen waxaa kaloo masaladan ijmaaceeda sheegay alqaadi ciyaad almaliki fii kitaabihi ikmaalu اlmuclim sharxu saxiix muslim fii kitaabihi ikmaali اlmuclim sharxi saxiixi muslim 10kaas kitaabaan ka soo qaadanayna calaa wajhi tamhiil laa calaa wajhi اlxasri inta sheegtay masaladan ijmaaceeda aad ay u fara badan yihiin waxaa sheegay abu jacfar الdaxaawi شharxa oo macaani الaahaar uu ku sheegay alxaafid taqiyudiin albaaji sharxa muwadda uu ku sheegay ibnu rajab alxambali jaamic اlculuum walxikam uu ku sheegay ibn xaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabkana fatxulbaari uu ku sheegay alxaafid taqiyudiin alxaafid alcayni
isaguna sharaxa bukhaariga ayuu isaguna uu ku sheegay almaawardi kitaabkiisa xaawil kabiir ayuu isaguna ku sheegay ibn اlcarabi annaasikh walmansuukh ayuu isaguna ku sheegay ibn cabdilbar kitaabkiisa alistidkaar ayuu ku sheegay ibn اlmundir kitaabka ijmaac uu ku sheegay qaadi ciyaad almaliki isaguna wuxuu ku sheegay ikmaal اlmuclim sharxi saxiix muslim tobankaas kitaabaa laga heli karaa masalada inay ijmaacba tahay oo wax iska nawaadirayo mar moxamed ibnu isxaaq iyo xajaaj ibnu ardaate iyo ibnu teymiye iyo ibnu qayim iyo waxyaalo afraadahoo fara ku tirisa mooyeen inta kale in ijmaac ay tahay muslimiintu masalada markaa ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen walidaalika waxaa kaloo jira oo ijmaaca naftiisa sheegaya oo markii waddankan sacuudiga oo hadda dadkan masalada u oleeya oo dhahaya dalaaqu ثalaaثa hal masala laga xisaabi meesha marjicooda ah waddankan sacuudi wuxuu iska leeyahay hay-ad ay ku tilmaamaan hay-at اlkibaar oo daaruliftaa ayagu madax ka ah oo waxyaalaha fataawaadka waddanku uu ictimaado hay-addaas naftooda qaraaray ka soo saareen masaladan dalaaqu ثalaaثa qaraarkoodu wuxuu soo baxay yacni sanadku markuu ahaa 1393 ee taariikha hijriga ah 1300 ay fatwadaa soo saareen 1393 ee taariikha hijriga ah culimmada yacni hay-adda ugu sarreysa aliftaa ee almamlaka alcarabiya sacuudiya waxay qaraarkaas ku yidhaaheen tawasala almajlisu fadhigeennu wuxuu gaaray biaglabiyatihi ilى اkhtiyaari اlqowli biwuquuci dalaaqi الثalaaث bilafdin waaxid saddexda dalaaqo hadduu qofku hal lafdi ku dhawaaqo dallaqtuki ثalaaثan inuu dhacayo saasaan aqlabiyad ku qaadanayn waa qaraarkii soo baxay 1393 ay ka soo saareen waxay ku sheegeen qaraarka xilligaas ay soo saareen culimmada ugu sarreysa waddanka mamlaka alcarabiya sacuudiya waxay qaraarkooda ay ku yidhaaheen oo ibnu rajab alxambali ay ka soo guuriyeen waxay yidhaaheen iclam annahu lam yahbut can axadi min aلصaxaaba cid saxaabada ka mid ahi kama sugnaan walaa min ataabiciin taabiciintana kama sugnaanin walaa min a'immati الsalaf a'immada salafka qof ka midana kama sugnaanin almuctadi biqowlihim a'immada hadalkooda lagu kalsoon yaho hadalkooda la xisaabo fi اlfataawa wاlxalaal wاlxaraam a'immada loo ictimaado fataawada iyo xalaasha iyo xaaraamta shay-un sariix wax cad oo ka sugnaaday ma jiro fii anna dalaaqa halaaث saddexda dalaaqo yuxsabu waaxida saddexda dalaaqo in hal dalqa laga xisaabayo salafkana kama sugnaanin qof saxaabada oo laga wariyey oo fadwo sariixa saas ku yidhi saddexda dalaaqo hal dalqaa laga xisaabi ma jirta yidhaah qaraarkaas lambarkiisa waan sheegay qofkii doona marjiciisu wuu qoran yahay dib ha ugu laabto leannu sanadku soo baxaan sheegay waa wasiiqo meeshii ugu dambeysay kalsooni meeshii ugu dambeysay qaraarka dhuljanab sanadku soo baxay iyo qaraarkii ayaa la sheegay waa ijmaac qolada ugu sarreysa maxaa marka yacni maadaama waddankii ayagu marjicooda ahaa culimmadii ugu sarreysay hay-adii sidaasba ay soo saareen dee khilaafkani muxuu yahay hadda la abuurayo oo yacni wiilashan yaryarkaa khilaafka iyagu ay abuurayaan maxay tahay maadaama raggii iyaga ka waaweynaa ee dowladda sacuudiga xalaasha iyo xaaraamta iyo fataawaha ay u ictimaadayeen maxay buuqa ugu furayaan dadka muslimiinta dhexdooda maxay dadkii yacni ugu bannaynayaan yacni nikaax aan jirin iyo waxyaalo aan maaragtay sharcigu ogolayn inay dib igu soo ceshadaan maxay dadka ugu bannaynayo waa ifsaad wey ifsaad wey mujtamacii dhexdiisa la fasaadinayo mujtamacii dhexdiisa ifsaad la fasaadinayo walidaalika mararka qaar waxaa laga sheegaa sayidina cali ay mararka qaar waxay ka sheegaan sayidina cali yaa qabaa la yidhi in dalaaqu halaaثaha hal dalqo in loo xisaabayo sayid cali masaladaas ma qabo mana loo nisbayn karo leanna waxa weye waxaa wariyey oo masaladaa inaysan sayid cali ka sugnaanin imaamu اlbayhaqi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan asunan اlkubra ayuu isagu ku soo guuriyey waxaa kaloo sidaas oo kale soo guuriyey sheekhan isagana la yidhaaho alkhadiib اlbaqdaadi fii kitaabihi alkifaaya kitaabkiisa alkifaaya acmash oo rijaasha bukhaari ku jira ayuu ka soo guuriyey khadiib اlbaqdaadi acmashaa wuxuu yidhi kaana bilkuufati shaykhun yaquulu kuufo waxaa joogi jiray nin sheekh oo dhihi jiray samictu caliya bna abi aalib sayid cali bn abi aaliban waxaan ka maqlay yaquulu asagoo dhihi jiray idaa dallaqa rajulu imra'atahu halaaثan ninku hadduu xaaskiisa saddex dalaaqo ku furo fii majlis waaxid
hal fadhina uu kugu furo saddexdii dalaaqo yuraddu ilaa dalqatin waaxida hal dalaaqo ayaa dib loogu celinayo saddexdii halaa laga xisaabi ayaan sayd cali ka maqlay nin saas faafinayaan la kulmuu yidhi acmashaa dhahay acmash oo sayd cali hadalkaa ka soo xidhanay markaasaa wuxuu yidhi faqara'tu calayhi albaab gurigiisaan tagay albaabkiisaan ku garaacay ninka masaladaas sayd cali ka sheegay faqultu lahu akhrij ilaya kitaabaka waxaan ku yidhi sanadka aad uga warisay iyo kitaabka sayd cali uu ku yidhi iyo sanadka aad uga warisay soo saar soo bixi ayaan ku idhi yidhi kitaabkii ii soo bixiyuu yidhi kitaabkii sanadka uu ku qoraa ayuu ii soo bixiyey kitaabkiiyaan akhriyuu yidhi idan mar kitaabka waxaaba ku qoranba idaa sayd cali qaala caliyu bnu abi طaalib idaa dallaqa rajulu imra'atahu ثalaaثan fii majlisin waaxidin faqad baanat minhu walaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan gayrahu hadduu maaragta sayd cali inuu yidhi ninku hadduu xaaskiisa furo oo saddex dalaaqo uu ka furo baanat minhu waa ka baa'intay walaa taxilu lahu xalaalna u noqon mayso xataa tankixa gayrahu kitaabkii sidiiyaa ku qoran markaasaa acmash wuxuu yidhi sheekhii kuufo waxaan ku idhi faqultu lahu wayxaka haadaa gayru aladii taquulu halaag ha kugu dhacee wixii aad sheegaysay waxaan isma lahan waxaan sayd cali kitaabkan ku qoran oo kitaabkan adigaa ii soo saaray weliba oo gurigaaga ka soo saaray markaas wuxuu yidhi sheekhii aلصaxiixu huwa hada اlkitaab sida saxdaa waxaad akhrisay sayd cali waxaa ka sugnaaday midkan adiga aad akhrisay walaakin haaulaa'i araaduunii calىa dalika laakiin dadkan magaalada kuwa ku nool ayaa iga codsaday waxaan beenta inaan faafiyo dadaa ilugooyuu yidhi runtuu iska sheegay marka dadaa iga lugooyuu yidhi inaan sayd cali warkaa ka faafiyo dadkaa iga dooday laakiin sayd cali waxaa ka sugnaaday waxaad akhrisay wey adiga waana kitaabkaygu gurigaygu yaalla kitaabkaygu laakiin dadaa xoogaa ilugooyuu yidhi oo xoogaa maaragtaahay ayaan darra i heshay markaan magaalada ku faafinayay mas'alada xoogaa nasiib darradaasaa igu dhacday marka masaladaasina sidaas ayay been ugu tahay oo sayd cali kama sugnaanin masalada inuu iftooday xikaayada labada masalada waxay ku qoran tahay sunanulbayhaqi iyo sidaasoo kale kitaabkan alkifaaya oo khadiib albaqdaadi muxadiskaa weyn uu iska leeyahay in lagu been abuurtay arrinkiina ay ku caddaatay yacni sayd cali inuusan masaladaas marna asagu uusan iftoonin xataa masaladan waxaa jira qofku haddii haweenaydiisa saddex dalaaqo hadduu haweenaydiisa ku furo oo markaa loogu yidhaaho haweenaydii uu dib u soo ceshado iyadoo nin kale uusan u dhexaynin oo sidaa uu ku jimaaco a'immada waxayba sheegeenba inuu zino yahay jimaacaas inuu zino yahay ayay sheegeen dadka sheegana waxaa ka mid a faqiiha weyn ee la yidhaha almaawardi sheekhan la yidhaha fii kitaabihi alxaawi اlkabiir kitaabkiisa xaawi kabiirka ah wuxuu ku yidhi xaawi اlkabiir wa ama alcaqdu calىa dawaati اlmaxaarim haddii qofku uu nikaaxsado gabar maxramkiisa walaashiis iyo eeddadii iyo hadduu nikaaxsado yakuunu اlwaadi'u fiihi zaaniya nikaax noqon maayo waa zinuu yidhi yajibu calayhi اlxaddu xadkaa ku waajibay wakadaa low nakaxa hadduu nikaaxsadana waa la miduu yidhi mudallaqatan minhu ثalaaثan qabla zawjin maawardi ayaa ku yidhi xaawi اlkabiir masaladaaba wakadaa waxaa la miduu yidhi low nakaxa mudallaqatan minhu ثalaaثan haweenay saddex dalaaqo uu ku furay hadduu guursado qabla zawj iyadoo nin kale aan soo marin ayuu guursaday wa wadi'a fiihi waana ku wadiyu yidhi wadina waa ku sameeyey yucaddu zina lagu tirinaa marka waa ayaan daro in mujtamaca iyo bulshada zina lagu faafiyo mujtamacii iyo bulshadii in zina loo iftoodo waa ayaan daro qaala shaykhu raximah اllahu taعalى baabu man jawaza dalaaqa الثalaaث biqowli اllahi tacala liajli qowli اllahi tacaala qowlka ilaahay dartiisna u banneeyey ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi addalaaqu dalaaqu marataan